annagoo ah odayaasha dhaqanka waxgaradka culamaa diinka beesha dagoodiya ee ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya midda kale xildhibaanada waxgaradka siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari siiba beesha Cabdiwahaab ka dhashay ummadda aad matasheen waa wax ku heedeen waaye ma aha kursi iclaan ku fadhina dadka aad matasheen in sida arig la iska jiito waa laga fiican yahay madaxweynuhu mar labaad waxaan kugu baaqaynaa xabsi waa xun yahay waayiti waa xun yahay aabaha soo arkay Jomo Kenyatta soo arkay aabaha xurriyad waxay leedahay waa ogtahay ilmahaas Professor Cabdiwahaab waa inay maanta aabahood nolol iyo geeri loo sheego shirkan jaraa'id ee ay Muqdisho ku qabteen waxgarad iyo dhaqanka beesha dagoodiye ayay kaga hadleen afduubkii loogu geystay bartamaha caasimadda Kenya ee Nairobi aqoonyahan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ahaa falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda Afrika iyo Bariga Dhexe xubnahan waxay shirkooda ku sheegeen in ay tahay wax aan la aqbali karin in bartamaha magaalada Nairobi lagu afduubo shakhsi miisaan leh dowladda Kenyana aanay wax jawaaba ka bixin ilaa haatan waxaana ay sheegeen in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ka doonayaan in jawaab degdeg ah uu ka bixiyo arrinkan haddii aan nahay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee helada Professor Cabdiwahaab ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan soo jeedinaynaa cabasho ku saabsan xariga iyo maqnaashaha oo raq iyo ruuxba leh oo aan la haynin raq iyo ruuxba aan la haynin Professor Cabdiwahaab marka dawladda Kenya waxa ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo in Professor Cabdiwahaab xorriyadiisu helo waxaan cabasho ka nahay dawladda Kenya Professor Cabdiwahaab oo nin aqoon-yahan ah oo nin fikirkiisa cabira ah oo nin ilaahay iyo ummadiisnimaad wax ka qabanay jirin oo si sharci darro afduub looga haysto arrintaas aan cabasho ka nahay waxaan rabnaa dawladda Kenya oo u dhalanay oo asaga u dhashay oo xornimadeedii laga soo qayb qaatay oo Cabdiwahaab aabihii iyo madaxweynaha aabihii dadka isla xirnaa jiray isla soo halgamay yihiin waxaan rabnaa in la tixgeliyo arrintaas waajibka dawladda dambi ka galan cadaalad u hela hada dambi ka galin sida Mooryaanta ilaa afduubta ma aha annagoo ah odayaasha dhaqanka waxgaradka culamaa diinka beesha dagoodiya ee ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan baaq u diraynaa Jamhuuriyadda Federaalka Kenya oo ugu sareeya madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha dagoodiya waxaan cod dheer iyo cod gaabanba dawladda federaalka Jamhuuriyadda Kenya ka codsanaynaa waxa aan annaga maqalnay ama xildhibaanadii ka hadlay meediyaha ay sheegeen in boqolkiiba boqol tuhunka dawladda federaalka Jamhuuriyadda Kenya inay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad gacanta ay ku hayaan waxaan codsanaynaa in xorriyadiisi bini'aadanimo tii Kenyanimo tii muwaadinimo in Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo helo hadii ay dawladda gacanta Kenya ku hayso hadii ay ku haynina hadii dawladda Kenya iyada ayaa qof kasta oo muwaadin ah oo Kenyan ah ayada ayuu ka saaran yahay xil in ay raq iyo ruux meel kasta oo galo hay'adaha amniga dawladda Kenya ayaga ayuu muwaadilkaas iyo muwaadil kasta oo Kenyan ahba ka saaran yahay xorriyadiis hadii ay gacanta ku hayaan bini'aadamka wax kasta oo yahay waa gali karaa qalad wuxuu sharciga dhigayaa sida annaga aan caalamka iyo aan ku ognahay in hadii qofka uu dambi galo maxkamad la soo saaray wixii dambigiisa lagu cadeey hadii uusan dambi lahayna xorriyadiisa dib loo siiyo dawladda Jamhuuriyadda Kenya oo ugu sareeya madaxweynaha intaas ayaan ugu baaqayaa dhanka kale siyaasiyiinta ganacsatada iyo waxgaradka beesha dagoodiye ee Kenya ayay ugu baaqeen in garab istaag ay u muujiyaan qoyska Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad isla markaana aanay dhayalsan maqnaashaha Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad waxaan baaq u dirayaa beeshii aan ka dhalanay ee beesha dagoodiye haddii ay tahay waxgarad siyaasiyiin odayaal xildhibaano waxgarad
idaacadda hal nin umbaan anigu kolley shakhsi ahaan ka dhegaystay waa laga yaabaa in shaqo weyn ay socoto waana rajaynayaa waxa aan idin farayaa beesha dagoodiya haddii siyaasi ay tahay xildhibaan yahay haddii uu yahay culimaadudiin haddee maanta haddii ninkaas uu sidaas ku baxa oo aad ka dhiidin weysaan oo wax muuqda ka qaban weysaan haddee berri idinkana meeshaas aad maraysaan waxaan warkayga ku soo gabagabaynayaa tii alla ayay wax kasta noqotaa laakiin dadaal baa loo baahan yahay beesha uu ku abtirsada beesha cabdiwahaab si cabdisamad ee beesha dagoodiye xildhibaanada sharafta leh waxaan ognahay in la taliyaha madaxweynaha dowladda Kenya uu yahay nin dagoodiye ah Professor Cabduqaadir Lawyer waxaan codsanaynaa maadaama dowladda saas gacanta uga haysaan waxaa la kaga baahan yahay arrinkaas si degdeg ah inaad wax ugu qabataan annagoo ah waxgaradka odayaasha dhaqanka beesha dagoodiye ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho mid kale xildhibaanada waxgaradka siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari siiba beesha Cabdiwahaab ka dhashay waxaad wax ku heedeen waa Cabdiwahaab iyo wax la mid ah waxaa la ka rabaa arrintaas inaad u joogsataan waxaa la ka rabaa ninkaad geeri nool inaad keentaan waxaa la ka rabaa ninkaad in cadaalad loo helo wax lagu haystaan cadaalad u helo haddii cadaalad darro lagu haystaan xaqiisi loo soo dhiciyo ummadda aad matasheen waa waxaad wax ku heedeen waaye ma aha kursi cidlaan ku fadhinaa dadka aad matasheen in sida arig la iska jiito waa laga fiican yahay arrintaas inaad wax ka qabataan la ka rabaa haddii aan nahay ummadii Cabdiwahaab dadkiisa ahayd oo Soomaaliya waa ka xunnahay arrintaas aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaan rabnaa halkaan inaan kala hadalno xildhibaanada iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo inta saaxiibada iyo ehelka iyo qaraabada iyo isku professionka ee Professor Cabdiwahaab waxaan rabnaa in xuquuqdiisa loo istaago waxaan rabnaa in meel walba maanta hay'adaha xuquuqul insaanka u hadlo hay'adaha u dooda dadka Professor Cabdiwahaab asagaba wuxuu u doodi jiray dadka dulman kuwii shalay baa u doodayay maanta inay ka aamusaana waa xogo foolxumo waaye waxaan rabnaa professorkaas haddii uu dembi galayna in sharciga la keeno xorriyadiisii dib loo celiyo maxkamad la keeno sidii nidaamkii qaynuunku qabo laakiin in maanta waa nasiib darro in wadankii Kenya magaalo madaxdiisii caasimadda halkii uu u dhashay maanta in lagu afduubo oo raq iyo ruux lagu waayo oo dawladdiina weli aysan arrintaas iyada wax ka qabanin haddaan nahay eelada Professor Cabdiwahaab waxaan oo deer ku leenahay walaalayaal ha loo istaago haddii aad tihiin xuquuqul insaanka ku raadiyo haddii aad tihiin saaxiibadii professoradii asaga la midka ahaa aqoon-yahanadii looyaradii Kenya waxaan ka codsanaynaa in professorkaas cadaalad uu helo xorriyad helo ilmihiisii maanta loo geeyo marka sidaasaan codsanaynaa waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku soo jeedinaynaa madaxweynuhu mar labaad waxaan kugu baaqaynaa xabsi waa xun yahay waayiti waa xun yahay aabbaha soo arkay Jomo Kenyatta soo arkay aabbaha xorriyad waxay leedahay waa ogtahay ilmahaas Professor Cabdiwahaab waa inay maanta aabbahood nolol iyo geeri loo sheego si kastaba Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa ka mid ah aqoon-yahanada farakutiriska ah ee bartay cilmiga siyaasadda dhaqanka iyo taariikhda Afrika waxaana uu ahaa falanqeeye si cilmi iyo aqoon iyo waayo aragnimo ay ku jirto u gorfeyn jiray xiisadaha ka taagan dalalka geeska Afrika oo ay ugu horeyso Soomaaliya waxaana uu ka mid ahaa macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi ma jirto wax war ah oo laga helay tan iyo intii lagu afduubay gudaha Kenya waxaana ehelada Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad wali ay ku guda jiraan baadi goobkiisa